warshalay duraad weynagii doorasho galay oo kulay dad badan fartoodii way aadeen maanta waxaynu ka taxaatiraynaa si inaan farteena weydin labadaba yaale waa mid aan maalin iska bedelin mabdiisa xisbiga ka soo baxay oo aan siyaasadda labadii sano iyo barkii la soo dhaafay ku jaawareerin waa mid si weyn ugu walalayay in gobolka Saraar dadajara kor loogu qaado waa mid musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliland si weyn ugu kalsoona qofkeenu ka hadlayna waa xildhibaan Axmed Muuse Jaamac oo ka mid ah golaha wakiilada ee Soomaaliland sanadkii 2022 deegaankiisa ayuu codkii ugu badnaa ka helay wuxuu ka soo baxay gobolka Sool waxa uu noqday mid bulshadiisu mahadiso oo xaalkooda ogaada waxa uu noqday mid geed fadhi u ah daryeelka iyo kabista deegaankiisa waxa uu biyo gaarsiiyay isla bilowgii markii uu soo baxay deegaanadii kala duwanaa oo ka soo baxay ee gobolka Saraar xilliyo biyaha si ay muhiim u ahaayeen isla markaana biyo la'aan jirtay waxay aynu u qaybinay waridaad oo laba ah wiriiro oo laba ah garka oo mid ah mugaca oo booyada qotono booyada geesaha iyo booyada balitumuro booyada carramada booyada balaadhiso booyada haddii ilaahay ka dhigo booyadaha iyo biyaha wixii harsanna waxaan ka soo bilaabi doonaa jiida banaano ilaa gumbura xangeeyo iyo inta ka sokaysa tallaabadu qaaraaba waxay Axmed ahayd mid taariikhi ah wixii xilligaasi ka soo bilaamay waxa uu salka u dhigay xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu noqday mid fagaaraha keenay in gobolka Saraar golaha wakiiladu ay ka dhigaan darajada mid kor loogu qaado degmaahan oo arkayseen markaanu bil joognay inaanu darajadeedii kor u qaadnay isla markaana Muuse Biixi oo madaxweynaha ay isku taagay waxa uu foolaad u noqday xeerar kala duwan oo goluhu saameyn ku yeeshay ayuu badheedhihiisa ka dhiibtay waxa uu noqday in maalmo adag u garab istaagay musharaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro oo hadda ah madaxweynaha dooran ee Soomaaliland waxa uu door weyn ka qaatay isku xidhka dhalinyarada deegaankiisa oo howlaha u noqday bugdhig waxa uu si weyn ugu ololiyay deegaankiisa baahiyaha arrimaha bulshada ee ka jira waxa uu kasbaday bulsho tiro badan oo safka aragtidiisa la mid noqday waxa uu deegaankiisa xisbiga wadan iyo musharaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro ay heleen taageero mayal adag oo aan isbedelin isla markaana hormuud u noqday isbedel doonka dalka waxa uu kaga adkaaday deegaankiisa kuwii xukuumadda ugu jiray sanadooyin badan isla markaana saameynta hore ku lahaa deegaankaasi xisbiga aynu maanta dooranayno ee maanta aynu u aragno inuu yahay kii ka saari lahaa xaaladda dalku ku sugan yahay iyo xaaladaha adag ee soo wajahay iyo waddankeenu waxa weeye dhibaatooyinka ku soo noqnoqday muddo iminka 7 sano ah waa xisbiga wadan iyo musharaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi marka waxaan leeyahay aynu u diyaar garowno doorasho xildhibaan Axmed Muuse Jaamac waxa uu qayb ka noqday guddida xisbiga wadan iyo siyaasadeedka ka ee isbedel doonka ahaa kuwaasi oo qodobada heshiiska ahaa bugdhig uu noqday xildhibaan Axmed Muuse Jaamac waa shakhsi afgaaban shaqo yaqaan ah mabda adag waxa intaasi ka muuqata shaqooyinka aynu kor ku soo xusnay waxa uu sanadkan intii ololaha doorashadu socday geed fadhi u ahayd xarunta gobolka Saraar ee Caynaba waxa uu hogaamiyay qorshaha ololaha deegaankiisa ee xisbiga wadani waxa uu fagaaraha Caynaba kaga adkaaday xisbigii talada dalka hayay kulmiye xildhibaanadii aad doorateen halkan waxa ka maray aniga iyo bile kuraastii aad noo doorateen maanaan masaariibsane waxaanu idinku maalgelinay xisbiga wadani iyo musharaxa imika la dooranaya dhaartu waarsan tahay siyaa waxa weeye xuquuqdiin iyo xaqiinna uga heshaan deegaan ahaan iyo gobol ahaan iyo degmo ahaan iyo dad ahaanba waxaannu idinku maalgelinay xisbiga wadani ee aad naga doorateen inaannu deegaannada horumarintooda iyo ciidamada madaniga ah ku darray miisaaniyadda waxaana diiday Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha dalka oo miisaaniyaddii dib u soo celiyey waxa kaloo hore wuxuu ku jiraa isbeddel inaynu dalkan ka samayno isbeddelkana inaynu hormuud ka noqonnaa baa loo baahan yahay haddaynu nahay gobolka Saraar inaynu hormuudka ku suntonaanno inaynu isbeddelka ku suntonaannana looga baahan yahay taana annagaa idinku hoggaaminaynaa ama xinifa yidhaahda kaaran ha la qaybiyo kuwii horeba dadka u siin waaya siyaasaddana annagaa idinku hoggaaminaynaa halka saxanna annagaa idiin tilmaamaynaa maantana xisbigaa wadani isbeddelku isagu ku jiraa ee taa horta meel ku qorta waxa uu ku soo hogaamiyay codkii ugu badnaa ee bulshada gobolka Saraar ay siisay madaxweynaha dooran ee Cabdiraxmaan Ciro waa mid isku haya waayo aragga deegaanka iyo jiilka dhalinyarada ah isla markaana hilmaamsanayn doorka haweenka waxaanu ka dhigtay bartilmaameedka koowaad
haweenka Axmed Muuse Jaamac hadda waxa uu noqonayaa mid dhisay musharaxii madaxweyne ee xisbigiisa ka soo baxay ee berber taagnaa tan iyo markii xildhibaanadu kala aragtida ahaa ay ka soo baxeen wadani ay qaarkood safka mucaaradka ay ka baxeen qaar kalena ay galeen ururada Axmed waxa uu hiil iyo hoob u noqday xisbiga mucaaradka ee wadani iyo musharaxiisa hadda dooran ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo hadda noqonaya madaxweynaha Soomaaliland isla markaana bedelaya madaxweynihii hore Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi